ciidamada booliska magaalada Gabiilay ayaa rasaas ooda kaga qaaday ardayda dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Maxamed Warsame oo mudaharaad ballaaran ka sameeyay magaalada Gabiilay. Mudaharaadkaasi ardaydu ay sameeyeen oo gilgilay magaalada Gabiilay ayaa ahaa mid rabshado wata, waxaana khasaare laxaad la soo gaarsiiyeen maxkamadda gobolka Gabiilay, xarunta wasaaradda maaliyadda magaalada Gabiilay, xafiisyada wasaaradda beeraha iyo xarunta dawladda hoose ee magaalada Gabiilay, iyagoo jajabiyay gaadiid dhowr ah oo xarunta wasaaradda beeraha dhex yaalay. ardaydani mudaharaadaysa ayaa waxay ku diidanayeen in laga qaado isma laba qol ah oo ku yaala kasoo horjeedka dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Maxamed Warsame, halkaasi oo lagu barto quraanka kariimka ah. dhismahaasi oo dawladda hoose degmada Gabiilay ay damacsanayd in ay ka wareejiso dugsigaasi lagu barto quraanka kariimka, iyagoo sheegay in dhulkaasi ay leedahay dawladdu, isla markaasina laga samaynayo xafiisyo loogu talagalay wasaaradda horumarinta iyo reer miyiga. daba markii uu soo gabagaboobay mudaharaadkaasi ballaaran ee maanta gilgilay gudaha magaalada Gabiilay ayaa wax aanu wax ka weydiinay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Maxamed Warsame Cabdiwahaab Daahir Cismaan, waxaanu kaga jawaabay ujeedada mudaharaadka sababtu u dhacay ma garanayno. annagu sidaan ardayda wax ugu dhiganay markay gaadhayeen waqtigii ay saaca u baxayeen 10kii ayaanu xafiiskan aan fadhiyo ardaygii markii jalaskii loo garaacay bixidii hoose iyadoo ardaydu wada bixin ayaan xabad maqlay. xabadaan maqlay markaan ardaydii ka daba baxnayna xabadii way harbeesho aad bay noogu soo badatay. ardaydii wixii aan qaban karinay waanu qabanay, wixii kalena ardayda wixii aan celin karinay waanu celinay, wixii kalena way yaaceen naga horbaxay. marka wax aliya wuxuu ku saabnaa arrinka maanta dhacayna ma garanayo. xabadaasi inay halkaa ka bilaabato ma garanaya, naga soo horjeeday beerta xorriyadda loo dhigay ciidanka boolisku jireen. waxaana ahayd 10kii markii musaaca ardayda loo sii daayay. waxaa sababada aad garanaysaa arday iyo dabeecadiisa. xabadda la ridayo ciyaarba u haysta. xabadda maxaa ka keenay askarta maamul? waa ardayda dareereen iyaga su'aasha weydii waxa xabadda ay waxay xabadda u ridaan askariga weydii. annaga 10kii musaaca u baxaynay xabadii un baa bilaabay. sidoo kale Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu ka hadlay mudaharaadkani, waxaanu yiri goobtan aanu joognaa waa iskuulkii hoose dhexe ee Gabiilay Sheekh Maxamed Warsame. waa halkan saaka rabshadu ay ka dhacday booliska iyo ardaydu ay isku hor yimaadeen. maanta aad iyo aad bay magaalada u kacday, rasaas badan baa dhacay. hase yeeshee nasiib wanaag haddaan odayaashii nahay waanu soo dhex galnay, arrinkiina ilaa imika waanu ku jirnaa, waananu xalkiisii ugu horreeyey waanu gaarnay. ardaydiina way xarootay, ciidankiina saldhigga booliska ayaanu ku eekaysiinay inayna ka soo bixin. wixii intaa ka dambeeyana haddii alla idhahdo waxaan doonaynaa inaan gallo oo aanu wixii xidhan iyo hawlaheeguna aanu gallo. laakiin marka ugu horraysa waxaanu ku guulaysanay inaannu arrimihii dejinno oo aanu ku soo celinno xaaladda sideedii hore. waxaana ag jooga waa waalidiinta ardayda oo iyaguna ardaydoodii u baqay, ubadkoodii u baqay oo yimid meesha. xaaladdu meel fiican bay noo maraysaa, laakiin rasaas baa dhacday, rasaas badan baa dhacaysa oo la wada maqlayay. annagu intaanu soo gaadhnay waxaanu ka bilownay inaanu horta joojinno wixii rasaasi dhacaysa oo aanu ciidamadiina goobtoodii ay ku eekaadaan, ardaydiina aanu iskuulkoodii ku eekaysiino. dadoo lagu dhex arkayay ardaydan mudaharaadaysay dad kale oo iyaguna qaba aragtida ay qabaan, isla markaasina sidoo kale mudaharaadayay ayaa iyaguna ka hadlay arrintani, waxaana sheegeen sababta keentay inay mudaharaadaan. iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen cadaaladdarrada ka jirta gobolka Gabiilay, saldhigga haddii tahay cadaaladdarra ka jirta, maxkamadda haddii tahay cadaaladdarra ka jirta, dhalinyartii gobolka cadaaladdarra iyo dabila'aanba jeelasha ku jira, qaarna madheero la geeyey. waddanka cadaalad markaa kama jirto. macallinkuna imika wuu sameeyaa waqtiga xaadirka ubadkiina baasto rasaas baa loola dhacaya. cadaaladda jirta halkay taalla? cadaaladi ma jirto. Somaliland cadaaladiba kama jirto.
si kastaba haatee mar aan isku daynay in aan wax ka weydiino khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay mudaharaadkani barasaabka gobolka ayaa haba yaraatee uu ka gaabsaday barasaab wala uu sheegay in ay cid kasta oo ku lug leh mudaharaadkaasi ay tallaabo ka qaadi doonaan waxa kale oo aan isku daynay in aan wax ka weydiino maayirka magaalada Gabiilay iyadoo aanay noo suuro gelin isagoo ku maqnaa geeri ku timid Allah u naxariisto walaashi waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba Somsa TV magaalada Gabiilay